dahabkii oo dad ah ayaa xalay si toos ah ugu biiray xisbiga wadani iyadoo ummadda islaamka ah iyo caalamkuba u jeedo beesha cabdi xaamudna waxay xalay samaysay maaha waxaan fahmi karno kumanaan qof ayaa howlka soo buux dhaafiyay kumanaan kalena bannaanka ayay tubnaayeen kolkii howlku qaadi waayay shacabkan intan tiro leeg ma ogtahay in xisbiga wadani xalay dahab iyo codba la isugu daray Ceerigaabo haddii muuse 7 sano xukuumadda shaqeeyay annaguna 7 sano ayaanu dahabka shaqeynay ee ciraynagu tasho beesha cabdi xaamud ayaa sidan xalay tiri kulamaan dahabkii waa kulamaan madaxda xisbiga waxaan u sheegayaa dahabkii waa kulamaan oo halkan ka muuqda dalad kaliya caawa ku dhawaaqi mayno dahabkiina waa ku dhawaaqaynaa dalada waxaan noo weheliya dahabka iyo daladaba naga guddooma maalena habeenadii u dambeeyay qaar ka mida beelaha diga gobolka Sanaag iyadoo aanay midhi ka hadhin midna ka habsaamin ayaa isugu soo biyashubtay xisbiga wadani habeenaduna kala humaag iyo higil duwanaaye ee xalay waxay ahayd habeen howlka Istanbul xataa dibadda buuxsantay oo dadka qaar xataa dibadda lagu nageeyay halka qaarna xaafadaha lagu nageeyay oo xogta loogu geynayay guddidiina reer qaran waa idin muuqataa howlku waa buuxaa dabadduna waa buuxdaa dadkuna dabcan Ceerigaabo kuma dhamma oo ruushka buurta qolada lagu naanayso ayaa xalay iska lahayd iyagoona ku midaysan dalada cabayd ayay xalay cududooda taageero isugu geeyeen xisbiga rajada shacabka ah ee wadani noqotay daladan maanta cabaydna waxay noqotay xalay daladii kelmac baanu daahfurnay caawana cabayd baanu daahfurnay waxay noqotay haadkicii dalada cabayd waxay dheer tahay waa daladii shanaad ee laga aasaaso magaalada Ceerigaabo dhammaan daladaha kale waxay dheer tahay waa yeelkii iyo qadhadhaytidii iyo ningarboodkii iyo koofiyadii iyo madaxdii dhaqanka ee reerka ayaa intoodii badnayd ama dhammaantood la odhan karo ayay halka fadhiyaan aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa waana daladii sida ugu ballaaran loogu soo baxay dalada cabayd aad iyo aad baan u hambalyeynaya beeshan oo ah beesha dahabku u baxo isla markaana ah dhaqaale guuraya xisbiga ay u tagaana dahab faraqa ugu shubaya codkana ugu daraya ayaa xisbiga wadani oo fagaare ah uga ballan qaaday intaaba dalada cabayd ayaa maanta halkan aanu ku shaacinaynaa cabayd nin kasta wuu garanayaa cabayd haddaad aragtid meel ay ku qoran tahay ama magaca ama dahabka ku dulyacsan aad aragtid waxaad garanaysaa inay yihiin reerka la yidhaahdo cabdi xaamud waxa weeye reerkan xisbigu waa ku soo jireen weligood waa la bilaabeen insha allah ilaa markuu kursiga korayo dhowaanana waa la wadayaan waxaanu ka footaynaa ilaa 10 goobood baa sanaadiiqdayadu yaalliinaynu ka footaynaa goobo kalena rajaanu qabnaa inna loo ku daro waayo dalka iyagu waa kala fog yahay dhulkaanu degnaa aad iyo aad baanu idiin soo dhawaynaynaa waxaanu u taagannahay xisbi annagoo ah reerka cabdi xaamud waxaanu idin leenahay maalinta codka ee sanduuqa maxay noo ballana xisbiga wadani inaynu codka siino oo hiil iyo hooba isla garab taagno haddii aan ka horbaxo dalladdu waxa ay leedahay aan uga warramo madaxda xisbiga dalladdu waxa ay leedahay waxa loo yaqaano qabar xafiiso u gaara oo aanay cidna u daba fadhiisanay iyadu kiraysatay dalladdu waxa ay leedahay guddi heer qaran guddidaas oo ay samaysay dalladdu guddidaas oo ka kooban 8 xubnood 8 xubnood waxa weeye waxa marka la sameeyo gudoomiye ku-xigeen iyo xoghayaha ayaa fayeenka dalladda inta kalena waa xubnaha ku metela dalladaas waxay muddooyinkii u dambaysay ka shaqaynaysay midnimada iyo wax wada qabsiga cabayd